ya waa farxad talo taageerayaasha aanu farxadda u socda waayo Manchester United inaad istaagtaan baa muhiim maalintii ugu dambeysay waxaan hal daqiiqo saylana bay ahayd maanta waa in la wada istaago because waxaad moodaa 3-4 ciyaartooy fiican inay hadal hayaan weliba ciyaartooyga koowaad heshiiskiisu inuu dhan yahay buu caafimaadka marayo السلام عليكم واقف فوتبول شو mar kale idin leh soo dhawaada waxaan rajaynaa inaad fiican tihiin aniguna aad baan fiicanahay maanta maxaynu ka hadlaynaa laba qodob ama saddex qodob baynu insha Allah dul mari doonaa laakiin qodobka ugu muhiimsan markasta waa inuu hadaa arrinkii Messi maxaa ka soo kordhay ninkii Messi iyo kooxdii Barcelona waa isku dhageeyeen kooxdii waxay marayeen caafimaadkii coronavirus check-upkii kooxdii kale oo dhan waa timid ninkii Messi isaga ahaa muu show up garay inuu arrinkaa ka muu soo qayb gelin wuxuu yiri aanu arrinkaa waxba igama gelin idinka idii taala nafsiyanna wuxuu aaminsan yahay Messi inaan waqtigan xaadirka aanu ahayn ciyaartooy ka tirsan Barcelona oo nin madax bannaan u yahay oo adduunkiisa geli kara Barcelona waxay taageersan tahay amba aaminsan tahay inuu ciyaartooygaasi yahay ciyaartooygoodii ilaa ay koox timaado 700 milyan ay bixisa mooyaane xiriirka Isbaanishka ayaa iyaguna waxay soo saareen inay taageersan yihiin Barcelona kadib markii ay arkeen contractga ay Barcelona iyo Messi saxeexdeen xiriirku markan wuxuu aaminsan yahay inuu Messi inay koox lacag ka bixiso mooyaane aanu ayar wareegi karin marka reactionkaygu wuxuu ku saabsan yahay xiriirka Isbaanishka ma wuxuu eegayaa cadaalad buu ka yahay oo kooxda iyo ciyaartooygu dhexdhexaadinaya mise branka Isbaanishku ayuu dhinaciisa taageersan yahay oo wuxuu isleeyahay maadaama uu 2 years ka hor uu Cristiano Ronaldo idinka tagay oo Isbaanishkii in yar hoos u dhac ku yimiday hadduu Messi maanta idinka tago Isbaanishkii labadii ciyaartooy ugu magac weynaa amba adduunka ugu magac weynaa hadday Isbaanishkii ka tagaan Xavi iyo Iniesta iyo ciyaartooyii kale magac weynaa aanay joogin meeshii ma kula tahay kooxihii Isbaanishka magacooga inuu hoos u dhacayo Real Madrid iyo Barcelona always way joogi doonaan xagga sare laakiin still markuu Messi meeshii jooga magacii uu lahaa ma yeelanayo Barcelona Real Madrid sidoo kale magacii Cristiano Ronaldo markuu meesha ka baxay ma laha magacii ay lahayd amba kooxaha kale soo uga baqanayeen amba dhaqaale ahaan waxa soo galayay TV-yada kontraagyada ay ka helayeen marka aniga shakhsiyan waxay la tahay Isbaanishka xiriirkiisu inuu eegayo dantoodaas oo ah inuu Messi oo ah ay iyagu aaminsan inuu yahay laacibka adduunka ugu fiicnaa soo mara shakhsiyan aan aaminsan inuu yahay laacibka adduunka ugu fiicnaa soo mara inaanu ka tagin Spain oo 3 sano amba 2 sano amba 4 sano waxa uu haray ay tahayba uu joogo si ciyaartooy kalena Spain u yimaadaan Barcelona iyo Real ugu soo biiraan Atletico Madrid sidoo kale oo iyagu magaca Isbaanishka ay ilaaliyaan marka halka waa doon dhinaca ka raran laakiin waxaan u maleynayaa arrinkan inuu yahay arrin hadduu dhamaadana qaybtu ku dhamaadaba qayb si foolxun ku dhamaanaya ilaa iyo laga reebo Barcelona boardkeeda oo dhan intuu wada tago board cusub la soo doorto din Messi la hadlo la yiraahdo waa nimankii ku dhibayo dhan waa kuwan baxay bal maskaxdaada inaad bedeli karto isku eego kooxda waxaan ka bedelana marka maybe inuu arrinkaas wanaagsanaado kooxda iyo ciyaartooygu sidii kooxda iyo boardku iyo ciyaartooygu same page ay noqdaan arrinkuna wanaagsanaado laakiin intay sidani jirto sun baa ku dhex jirta suntaasina ma baabaaysa ilaa iyo dhinac u banaanka u baxo waxyaabaha Messi sii diidan yahay hadda aynu arkaynaa waxa kamid ah inay boardka ka socotay inuu coachka ka socoto labada midna ma garanayo anigu iyo ma oran karo saas laakiin waxaan aaminsanahay inuu coachku uu ku taageersan yahay boardka arrinka ay sameynayaan kaasoo ah inay kooxda ciyaartooy badan fasaxayso ha fasaxdee ciyaartooy badan ay free ku fasaxayso Suarez oo kale waxay ku yiraahdeen fasax baa tahay waxay rabaan inay fasaxaan si uu 14 milyan kooxda uga qaadanaya meesha uga baxdo Juventus baa diyaar u ah ma Suarez oo kale imka hadii la isla soo iibsado at least 10-15 milyan waa laga helaya imka warka ugu dambeeyay Spain ka soo baxayay 15 minute ka hor aan akhriyay wuxuu isaguna sheegay Rakitic inuu isaguna caafimaad uu marayo kooxdiisii hore Sevilla oo isaguna ku wareegayo isaga oo aan wax lacag laga qaadin kooxdaas kaliya Barcelona waxay rabtaa 8 milyan mushaharka ay qaadanayay inay meesha ka baxdo marka haddii kooxda ciyaartooygii free Fidal oo kale inuu isagana Inter free ku geysaa laga yaabo ama Milan laftigeeda inuu Juventus laftigeeda inuu ku noqdo marka kooxdii haddii ciyaartooygii free ku sii wada deyso boardkii oo wax weyn oo la hadal hayo muuqdana aan meeshii jirin Messi uu sii jeedo maxaad u malaynaysaa in Barcelona waxaad moodaa maalmaheedii fiicnaa inay dhamaadeen waxay noqon doontaba
bal iyadana waynu eegi doonaa wixii arrinkaa kasoo kordhay iyo Messi Barcelona xagga isla marto videogeena dambe insha Allah kaga hadli doonaa ee dailiga iminka haddaynu yar eegno qodobkeena labaad oo ah ciyaartooydii la kala iibsaday amba ciyaartooygii rajada badan leeyihiin inay wareegaan ayaa waxaad moodaa war aad u farxad badan leh ya waa farxad talo taageerayaasha aan farxadda u soo wada waayo Manchester United inaad istaagtaan baa muhiim ah maalintii ugu dambeysay waxaan hal daqiiqo saylana bay ahayd maanta waa in la wada istaago because waxaad moodaa 3-4 ciyaartooy fiican inay hadal hayaan weliba ciyaartooyga koowaad heshiiskiisu inuu dhan yahay buu caafimaadka marayo waayo ciyaartooygaasi waa Donny van de Beek oo u ciyaara kooxda Ajax oo weliba iminka daqiiqadan aynu ku jirno la leeyahay caafimaadkiiba wuxuu ku marayaa Holland kaasoo national teamkiisu ay ku ciyaarayaan uu la joogo caafimaadka hadduu baasana kooxda Manchester iyo Ajax ku heshiiyeen 40 milyan ciyaartooygana personalkii ay la heshiiyeenba marka Manchester United kolley saacadaha soo socda 48 saacadood soo socda way ku dhawaaqi doontaa ciyaartooyga la soo wareegistiisa ciyaartooygaasi waa ciyaartooy dhaxa oo xagga hore iyo xagga dambe labadaba ka ciyaari kara oo anigu isleeyahay ciyaartooygaas iyo Pogba iyo Fernandes haddii ay selaan Manchester United dhexdeedu waxay noqonaysaa dhexaad wanaagsan kuna soo noqonaysaa meelihii ay taagnaan jireen markay Roy Keane iyo Paul Scholes iyo Nick Butt iyo ay meesha ka ciyaari jireen marka Manchester United maalmeedii u fiicnaa waa soo noqonaya waxa kaloo isagana ay hadal hayaan ciyaartooyga Leipzig u ciyaara ee Faransiiska ah inay keenaan isaguna qaybta difaaca ku soo daraan oo difaacooga soo adkeeyaan waxa kaloo ay hadal hayaan Thiago Alcantara oo u badan inuu Liverpool u wareego laakiin Manchester United ay chance-keega qaadanaysa maadaama Liverpool diyaar aanay u hayn 25 milyan ee ay rabto Bayern Munich in la siiyo hadday ka iyo kan keento Manchester United waxaad moodaa in meel sare oo kooxihii kaleba ay ka dhex fiicnaanayso laakiin haddii ay Donny oo keliya keenaan Donny van de Beek oo keliya hadday keenaan Manchester United dhexdeedu next 6-7 years way xiran tahay oo nimanka kalena joogaan haddii Alcantara isagana hadalkan idhaahno Thiago Alcantara wuxuu u sheegay kooxdiisii ahayd Bayern Munich inuu ka tegayo maadaama Thiago Alcantara uu Bayern sheegay inuu tegayo uu weliba carabka ku dhuftay saxaafaduna in badan ka hadlaysa kooxdu u wareegaya inay Liverpool tahay su'aashan isweydiiyaa waxay tahay why Liverpool sababtu ma waxay tahay ma wuxuu isleeyahay Liverpool waa tan kooxda Ingiriiska ugu awood badnayd ee intaad hoos u sii dhaadhici lahayd 3-4 sanada kuu hadhay Liverpool horyaal kale amba Champions League labaad la qaado kooxda wanaagsan ee dhisan u tag way kooxaha ka hooseeya Liverpool uu dooran waayay hadduu rabo challenge cusub inuu doonto waa markii Ronaldo inuu challenge man dooranaya oo new challenge baan u baahanaya intuu Real Madrid ka tagay Juventus tagay challenge-ka Juventus yaa la muxuu 7 sanadood horyaalka qaaday ciyaartooygu star kasta oo meeshu taagayaan waan ku taageeraa Ronaldo waa ciyaartooy star oo labada ciyaartooy adduunka ugu fiicnaa soo maray ayuu kamid yahay laakiin Real Madrid ka tago Juventus tag challenge marko Milan Inter yes challenge baan arkaa marka Thiago Alcantara isaguna challenge-ka uu socda maaha challenge hadduu Manchester taga xataa waxaan u arkaa inuu challenge weli u yaalo maadaama Manchester bariyahan aanay koob qaadin maadaama Liverpool iyo Man City ka fiican yihiin Manchester United ka dago challenge ku ka adagayo ku Liverpool kala kulmayo mise niyadiisaba kuma jirta koobabkan iyo waxa niyadiisa ku jirta kooxdeeba dhexdeeda aad ka laacibsantahay imika Manchester United Fernandes iyo waxay haysataa Pogba labadaba aan qabo inay meeshu la taagan yihiin haddaanay kaba sarreynba Man City sidoo kale laacibo dhexdaa haysato walow aan qabo Man City hadday soo dalbato inuu jeclaan doono inuu Pep Guardiola la shaqeeyo mar saddexaad markaa ma wuxuu isleeyahay Hernandez iyo Keita adaa ka fiican kuma darayno Fabinho maadaama Fabinho yahay khadka dambe ee dhexe waqtigaa sheegay anu waan qabaa labadaba inuu ka fiican yahay waxaan qabaa Thiago Alcantara hadduu Liverpool ku soo biiro inay Liverpool meeshii taagneyd meel kasii sarreysa ay tegi doonto walow shaqadii Hernandez iyo aanu qabanayn laakiin haddana still Liverpool meel sare wuxuu ku soo kordhin doonaa xirfad aanay dhexda Liverpool lahayn kaasina waa ka haddaynu iyadana in yar aan reaction ka bixino Chelsea waxaan ay soo wadaan Chelsea maanta wuxuu sheegay coachkii Leverkusen inaanu Kai Havertz ku soo noqon doonin kooxda trainingkii ugu dambeeyay uu la qaaday haddana uu joogo kooxda wadanka nationalka Germanka uu la joogo maadaama laba ciyaarood Switzerland iyo Spain I think in laba ciyaarood la leeyihiin midna Arbacada midna Axadda marka uu halkaa ka tirsan laakiin
wuxuu aaminsan yahay coachkiisii Leverkusen inaanu ninkaasi markuu labada ciyaar soo ciyaara nin ku noqonaya Leverkusen aanu ahayn nin kooxda Chelsea u socda yahay. Chelsea ninka hadday keento ciyaartoy gebigooguba khibrad na leh aadna u yaryar oo midka ugu yar 3 sano first teamka uu ka soo ciyaarayay laakiin khibrad leh laacibiina waxa kaliya u baahan yahay shakhsiyan aan qabaa haddii ay gool wada iyo nin kale oo difaaca oo Thiago Silva la ciyaara Chelsea inay ku tartami karto horyaalka hadday intaa ku soo kordhiyaan laakiin imikadan laftigeega top 4 kooga ay si fiican ugu dagaalami karaan ciyaartoyga ay ku soo dareen ciyaartoy wax fiican ku tiimka ku soo kordhinaya ay tahay Ingiriiski aad buu isku soo dhisaya kooxihii kale maxaa ku dhacay Barcelona way sii dumaysaa Real Madrid wax ay hadal haysaa ma jirto Bayern Munich iyadu way fiican tahay oo way soo socotaa Talyaanigii Juventus wax weyn weli kama aragno marka misleenay kubaddi waxa iskugu yar buushibanaysa ay u wareegaysaa xalka horyaalka dalka Ingiriiska horyaalkoogu uu ka fiicnaa horyaalada kale marka la ciyaarayo daawashadooda uu ka badnaa laakiin misleenay hadda Champions League iyo Europe kooxaha ugu awood badnaan doona waxay noqon doonaan kooxaha Ingiriiska maadaama iyagu yihiin waxaan isa soo adkeynaya waqtigaa sheegi doona intaa waxaan ku dhaafi doonaa reactionkii aan ka bixinayay ambaan ka sheekeynayay maanta suuqa kala iibsiga iyo Messi xaaladiisii ugu dambeysay halkay joogtay insha Allah idinku haddii aad haysaan waxyaabo cusub oo idinku soo kordha xagga ciyaarahood ka war haysaan dadkiini ku xidhan amba page-ka noqoto amba TV-yada noqoto wixii aad jeceshiin inaad nala share gareysaan nala soo share gareeya wixii dhaliila waanu diyaar baanu nahay noo soo dira haddii Ilaahay idhaahdo comment-ka isaga hadday dhaliil tahay hadday tahay wax la hagaajinayaba labadaba noo soo sheega haddii Ilaahay idhaahdo waaga football show oo idinla sidaa iyo is aragti dambe oo xiiso leh